Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowladda Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ka daahfurtay madasha wada-tashiga bulshada magaalada Jowhar, oo ka mid ah kulamada ugu muhiimsan ee horumarinta deegaanada iyo degmooyinka Dowladda Hirshabelle. Kulankani waxaa shir gudoominayay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Hirshabelle Mudane Cabdi Daahir Guure Karoore, waxaana ku wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda. Waxaa sidoo kale goobjoog ahaa Golaha Deegaanka degmada Jowhar oo uu ugu horeeyo Gudoomiyaha degmada, gudoomiyaasha afarta xaafadood ee magaalada Jowhar, odayaasha dhaqanka, ururada dhalinyarada iyo haweenka, iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Ujeedka ugu weyn ee kulankani ayaa ahaa horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo dhismaha wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Hirshabelle, loona fududeyn lahaa hanaanka higsiga bulshooyinka si ay u helaan dulmar guud oo ku saabsan caqabadaha ugu muhiimsan. Nabadoon Xasan Khayle oo ka mid ah odayaashii dhaqanka ee ka qaybgalay shirkan ayaa ugu horeyn goobtani ka hadlay, isagoona soo dhaweeyay dadaalka ay dowladda Hirshabelle wado ee ku aadan horumarinta magaalooyinka waaweyn ee Hirshabelle. iyo anagoo odayaasha dhammaan waxaan soo dhaweynaynaa kulankan la isugu yimid intii aan ka garananay markii uu hadda sida loo sheegay xog la aruurinaane intii looga aadanaan ka qaadan doonaa hadii sida ilaa dadaal badan aan samayn doonaa. walow beriyahan ay ku howlaneed wasaaradda arrimaha gudaha haba ugu badnaado mataqaanaa agaasimaha guud shirar badanaa jiray oo aniga aan qayb ka ahayn iyo kuwa aan ka maqneenba. naftayna waa abdeedaan nahay, insha allah waa dadaalaynaa. wixii hadda lala furanay waa qaban doonaa hadii ilaa yira. Xogeyaha dowladda hoose ee degmada Jowhar Maxamuud Xasan Bariise iyo gudoomiyaha degmada Jowhar Mudane Cusmaan Maxamed Mukhtaar Baare oo iyana goobta ka hadlay ayaa soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay maamulka iyo qorshayaasha u degan 5 sano ee soo socota. waxaa isugu nimid annagoo ka kooban maamulkii degmada, wasaaradda arrimaha gudaha oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, iyo dhammaan afarta xaafadood iyo gudoomiyaashooda iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada. barnaamij ku saabsan xog ururin la rabo in qorshaha 5 sano ee soo socota ee degmada Jowhar ay yeelanayso iyo sida ay u shaqeynayso iyo baahiyaha iyo asaasiyaadka ay degmadu ay qabto. in dadkan ka kala yimid afarta xaafadood qof walba aragtidiisa iyo baahida uu qabo iyo xaafadda uu ka yimid iyo guriga uu ka yimid iyo maxaa la yiraahdaa meesha oo IDB-ga uu ka yimid, waxyaabahaas oo dhan in la iska wareysto, qof kastana xogta uu hayo uu bixiyo. waxaa hadda socda howlo lagu samaynayo wadooyinkii magaalada, gaar ahaan 3 xaafadood: Horseed, Hantiwadaag iyo Kulmis. xaafadda Kulmis aa ogsoon tihiin waxaa laga hirgeliyey isbitaal oo casri ah weliba oon zoonkan dhan oo ku oolin. waxaa hadda loo sameynaa waddo oo gaarayso ilaa iyo isbitaalka. wadooyinkan kale oo hadda socdana waxaa loo sameeyey ama loo sameynayaa golaha deegaanka ee maanta ka jira darteeda loo sameynayaa. ma dhici lahayn in intaan ay hadda oo la qabtay howlaha in ay sii jirto, ma dhici lahayn. waxay ku timid golaha deegaanka. haddii idinka aad adkeenin dhibaato badanaa ka jirayso oo ma ahaanayso in maxaa la dhihi jiray magaalada ay horumarto ama degmada ay horumarto. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Hirshabelle Mudane Nuur Xasan Muuse Nuur Jaake ayaa isna faahfaahin ka bixiyay muhiimadda shirkan iyo ujeedka laga leeyahay. waxaa sharaf inoo ah inaan maanta idinkala soo qayb galno madashan qaaliga oo aan iskugu nimid sidaan ugu wada hadalno dooda dhaxalgal ah oo aan wadaagno fikrado iyo himilooyinka hanaanka horumarka bulshadeena. madashani ma ahan fursad aynu isku dhagaysanayno kaliya oo mustamaciin al-akaarim aad noqonaysaanoo dadkan ay wax soo jeedinayaan kaliya ma aha. waa madal aynu isku si dhab ah aan iskugu macnaha iskula wadaagayno baahiyaha iyo prioritiska mudnaanta leh bulshada u leh. si aan ugu wada shaqeyno waxaan qaabaynaynaa mustaqbalka degmada Jowhar siday u ekaanayso. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Hirshabelle Mudane Cabdi Daahir Guure Karoore oo shirkani furay ayaa kaga mahadceliyay madaxda iyo bulshada reer Jowhar ka qaybgalka shirkan muhiimka u ah. qorshaha Jowhar waxaan rabaa marka in bulshada loo bandhigo
ay ka turjumaan dhahaan baahidaas noocaas afarta xaafadood ka jirto deegaanka weynaha degmada Jowhar baahi noocaas ka jiro inaan rabnaa soo dhawaada waqtiga aan rabnaa inaan isla qaadano waqtiga inaan baldareyno ma rabno waa ogtihiin bulshadana waxay u baahan tahay nidaam iyo kala dambeyn iyo qorsho iyo istiraatiijiyo loo sameeyo oo lagu hago qof kasta oo halkaan fadhiyo qoys uu leeyahay qorsho qoysaan u samaysan qof aan ilmihiisa saaka dugsi aadan ma fadhiyo qof aan ilmihiisa iskool u baahnayn ma fadhiyo qof aan hay'adda amniga oo stationka booliska u baahnayn ma fadhiyo qof aan cadaalad u baahnayn ma fadhiyo qof aan waddo oo maro hadduu baawar wato hadduu lugaynaabo waddo fiican oo maro u baahnayn ma jiro waa ogtihiin Jowhar inta badan biyaha caqabad ku ah waddooyinkeeda mararka roobka caqabadaha ka yimaado waxaan rabnaa waxaasoo dhan si looga gudbo inaan baleen fiican sameyno dalab fiican aan beesha caalamka iyo cid kastoo taageeraysa la wadaagno inaan waxaan rabnaa Jowhar wax ka bedelo ujeedaduna waxay tahay councilkii degmada iyo bulshada oo iskaashaday inay wada shaqeeyaan horta inaad barataan bal councilkii inaad barataan maayarkiina inaad wada shaqeysaan xaafadaha hal shay aad looga yaqaanaa gargaarka iyo gudoomiyaha xaafadda iyo macaawanada iyo waxaas waa la yaqaan laakiin dowladnimada rabnaa inaan barno afarta xaafadood dadka ka yimiday inay dowladda bartaan rabnaa dowladdana la shaqeeyaan Abuukar Al Cadaawi telefishinka dowladda Hirshabelle magaalada Jowhar.